madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo maanta salaada Ciidul Adha kula tukaday aqalka madaxtooyada ee dowladda Jubbaland ee magaalada Kismaayo mas'uuliyiinta labada gole ee dowladda Jubbaland iyo odayaasha dhaqanka iyo qaar kamid ah dadweynaha magaalada Kismaayo madaxweynaha ayaa hambalyo ku aadan maalinta weyn ee Ciidul Adha u diray ummadda muslimiinta gaar ahaan shacabka reer Jubbaland iyo kan Soomaaliyeed waxaan aad idinku rajaynayaa inaan insha Allah sanadkan sanadkiisa sidan si ka bedelan oo ka fiican oo ka niyad wanaagsan oo ka horumarsan aan ku gaari doono aad baan Ilaahay uga baryeynaa waa maalin maanta mudan in la ducaysto iyo in la iscafiyo intaba madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa goobta salaada ka jeediyay in shirka madasha wada tashiga qaranka uusan wali dhamaanin waxa uu madaxweynaha sheegay in shirkani uu yahay kii ugu dambeeyay guul miro dhal ahna laga filayo anagu shirkii guud baan ku jiray waxaan u maleeyaa madal baan idinkaga maqnayn oo wali soo dhamaanin oo rajaynaya inay tahay tii ugu dambeysay waxyaalaha laga hadlayana waxa ugu muhiimsanaa doorashadan dhacaysa sidii si nabadgelyo ay ku dhici lahayd amnigeeda iyo sida u dhici lahayd mid loo simeeyo cidna cid dulmiyaynin waxa laga soo bilaabay markii hore waxa la odayaal dhaqan baa qori jiray odayaashii waxa la odaygii way koobnaatay arrintiisa oo isaga iyo shakhsiyadiisa iyo waxay ku kooban tahay cidda uu soo qoro armaan yara baa khaaminaayo aan hol oday kiiska isaga kaliya la saarin oo isaga la tuhmin oo isaga la xamanin jaranjara la soo dhaadhiyay waxa la odaygii suldaanka ama ogaaska ama malaaqa ama wamarka guudaha ha u yeedhan nabadoonadiisii wax la lahaa ha u jeergareeyay isagu fadhiga ha yiraahdo ordo reer hebel calayn kursigii intaas weeyaan horta bal reer hebel kuraasta u soo qaybiyo jufooyin hadii la siinayo soo kala sheega haddii taa ku soo heshiin weydaan reer hebel ha wada tartamadhaha inta markii la gaaro haddana kursi walba waxa la yiri nabadoonadaas iyo waxgaradku intay isu tagaan ha soo xuleen 51 qof ee kursiga dooranaysa oo nabadoonku uu ka qayb gali karo ama uu iska deyn karo suldaanku uu ka qayb gali karaa ama uu iska deyn karaa inuu cod bixiyo laakiin ninka weyn ee mas'uuliyadda saraha yahay inuu isagu shacabkiisa mid u rido midna ka rido xogaa isagana u fiicnayn laakiin waa shay xaq u yahay xaq buu leeyahay inuu ridi karayo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa dhanka kale soo hadal qaaday musharaxiinta u oleynaya inay ka mid noqdaan baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ugu baaqay in musharaxiinta inay joojiyaan ololaha ay ku soo bandhigayaan laamiyada magaalada Kismaayo taasi oo keentay in saxmad iyo mashquul badani laga dareemo gudaha magaalada Kismaayo waxaan rabaa inaan idin sheego inay mamnuuc tahay qof xildhibaan musharax oo intuu baabuur isdabageliyo magaalada isdabadidsada oo qaabka waxaan amrayaa hay'adaha amnigu inay soo calaamadeeyaan qof kasta oo dhaqan noocaas ku kaca oo sameeyo in la soo calaamadeeyo qofka hadduu kaambeyn gareynayo ha ka kaambeyn gareeyo dhaqankiisa iyo odayaasha 51 qof marka loo soo sheegana كل هذا حواد شيئا سأبري لكن واحد نقطة ثانية لا هي بأوجه هلا حساب تمن قضاياش أو بحوي دي ولي وحكيت على ماشى قبيل كلو دورنا يو إن الدجاج نقطة دقمة لكن هذا أنا دوري أفرتك كرسي أشوف الآن الله حساب تمن نجي وحقبان ويانا أنا وصومالي على وضو المملي هنا موشي من كجيننا magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka Jubbaland iyo guud ahaan wadamada muslimiinta ayaa maanta si weyn looga ogay munaasabada salaada Ciidul Adha Ismaaciil Cali Cabdi warbaahinta dhanaan media magaalada Kismaayo